daahir oo inanta walaasheeda ma garatay waxa dhacday in walaashay reer ay ehelka iyaga ah oo in adeerkay ay shaqaale u noqotay ayaa dhacday shaqaali markay u noqotay ay maxaan ku raayay inaan iska barteen inantii baa leeyahay inantiini waxa la tagay inaan aan maxaan ku haytiisaan loo garanaynin waxaan ku yiri walaalo ii soo qaba baan ku yiri iigu yeedha waan u yeedhay inantii way ii timid Cabdiraxmaan waan la sheekaysto waxaan ku yiri walaal ka waran ninka iqdacada la sheegay waxay tii walaal waan isjeclay waan iskuursanayna ninkii baan lambarkiisa la soo siiyay lambarkii baan garaacay waxaan ku yiri Cabdiraxmaan ma tahay haabigu yiri waxaan ku yiri walaal dambayga ka soo gashay haye la tagaysay baan baan ku yiri inanta aad la tagaysay walaasheed baan ahay qof weyna looga qurux badan yaro laga kaxaysto maxaan ku dhaayay xaafad laga kaxaysto dadkoodii nool yahay ilaahay ba arsaaqada bixiyo oo arsaaqadu waa mawjiid ee walaal u kaalay wal dadkii dhalay baan ku yiri waayahay biigu yiri Cabdiraxmaan wiiga aqbalay wuu yimid markii uu yimid Cabdiraxmaan aabahay baan wuxuu aaba laba been xalaal waa la isasiiyay siibu aan siinay ana walaayada soo diray walaalkay buu ku wareejiyay walaalkay hadii ku wareejiyay aabahay inanta markii la meheriyay ayay tagtay aaba sidii ugu yimid aaba ku yiri aaba ma haysto aaba wuu kaxeeyay hadii uu raaciyay wuxuu aaba uu naga tagay aaba dardaarankiisa oo nasiinaya aaba dardaarankii markuu nasiiyay anagu dardaarankii baan raacnay 11 qof baan ku tagnay meesha 11 qof aroosada mooyaane 10 kale waan soo noqonay iyo milxisadii waanu ka nimid 11 qof baan ahayn milxisadii aaminaanu ka nimid hadii aan ka nimid milxisada aniga dhalay waa wala inantayda waa tanbaleeg كو سومال wax ku tira boqor war waqaata tabto kor waqaata kolkii alla wax ka siiyo banka qaadin gabadheeda sida ku hooya sidii gabadhii lagu hooyay sidii ya lagu kaystay gabadhii saati haddana arrinta dib igu soo noqotay anigu wanaag mooyo xumaanba kama aan talinaynin maalinta beenkiina taaroos kala hooyay ninkaasna wuxuu markii hore noo sheegay inay inanta dirlaa isu guursanayaan jaarka ummaduna si aan lumran lagu gaxeeyo buu dirlaa inagu guureen inanta dirlaa baan ku raacnay anaga wixii aan u qaban karin u qabanay jaarnimo hadalkan ka codsanay markii hore ninkaas naga diiday oo yiri baa leeyay degdeg leeygo hooyo waan gaxaynay koob iyo 10 qof aan ku gaxaynay inanta marxiisada iyo inanta aroosada oo kaliya kaga nimid hal saac baan daqiiqad gurigeed baan guriga joogin hal saac ma wada joogin 9 iyo barkii barta ka tagnay 10 oo buuraana waa soo noqonay haddaan ahaana guriga la iga raacay la iga raaciyna fasaxii taxankii reenti taariikhda dambaan waxaan saxay taxanaan kadibna badala rasmala kumay kadibna aan maxsuun noqdo guriga baan la geeyay dana la geeyay gurigan kula noolaa kadibna markaan fiidkiisa xanaan ugu tununknay ma dooran jeynantan habarka ku aan bartay ikan anaga dibaan iska kabin jaxan jiray ma barasho ma baahniyay igada ninkan kharashkan uu ka baxay uu leeyahay kharash baa iga baxoon doonaya yuu ka doonaya ciduu ka doonaya waayo waxaan leenahay halka kharashku halkaas ka doonaysa ala yaqaan anaga kharash ciidu nugma mana rabno asagu baan ka maqlayna la soo dhigay meesha waxaan shaqadeey kulama inantii milxiisada ahayd waa taa dumarkii hablihii galbiye waa kuwa gurigii laga raaciyay waa kan goob joog baan ahaa markii loo feerayay ee la raacinayay ayga wada baxay ninkan la sheegayay yaraniyo naagta lagu sheegayana inuu jiro iyo inuu nooliyay da wax qalbiga igu tiramaan waxaan aqaanana maan waxaan meesha ka fiiriyay waa sheeko bari dambe oo toonjiga meesha la uu soo baxay oo ninku muxuu ahaa nin mariya xiran ba habeen loo yimid oo waa tiin erinado oo makiiba ahaa inanka waa aragtay ninka la soo dhigay meeshana waa aragtay runta iyo beentana intaas aan iskaga fahmay